daawadayaal ku soo dhawaada qaybaha kala duwan ee warbaahinta Baraarug inagoo halkan aynu soo gudbinna qaybta idaacadda Radio Baraarug Media madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isla toddobaadkan shaqadii ka ceeliyay wasiirkii wasaaradda qoyska iyo shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir Hindagaani madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo xilkii ka ceeliyay wasiirkii Hindagaani madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo xilkii ka xayuubiyay ama ka qaaday wasiir Hindagaani inaan magaceeda ku sheegtay Nuure Maxamed Dirir ayaa barta ay ku leedahay baraha bulshada ay ku wada xidhiidhay ee Facebook-ga goobta ay ka isticmaasho waxa ay ku shaacisay qoraal kooban oo ay kaga hadlayso mar ay xafiiska wasiir Hindagaani ugu tagtay waxyaabihii dhexmaray oo ay la wadaagtay dadweynaha Soomaaliland waxyaabihii ay kala kulantay xilli ay kulan kula yeelatay ama ay doonaysay in ay wax kala qabato wasiir Hindagaani oo ugu tagtay wasaaraddeeda xilliga ay xilka haysay wasiir Hindagaani waxa aan qoraalkeeda ku bilowday Hiba Nuure Maxamed Dirir qoraalka kooban ee ku shaacisay ama ay ku faafisay barta ay ku leedahay Facebook-ga ee baraha bulshada ku wada xidhiidha oo u dhignaa sidan may dhaweyn laakiin weli ma ilaawin hadal ay igu tiri wasiirkii xilka laga qaaday ee Hindagaani waxay ahayd mar aan xafiiskeeda ugu tagay kadib markii la ii sheegay in ay qaadanayso shaqaale cusub iyo kuwa xireysanayay CV-ga shaqo qaran ee 3 jeer oo la iga soo celiyay albaabka xafiiskeeda maalin afraadii ayaa la sii daayay markii aan la kulmay kadib waxaan u sheegay ujeedada aan u socday oo la wadaagay baahiyihii asaasiga ah ee noloshayda dhowr su'aalo oo ay weydiisay waxa ugu la yaab badnaa markii ay igu tiri ma adiga oo inanta leeg baad doonaysaa in aad shaqaysato balwad baad leedahay hablaha yaryar ee gurigooda ka soo baxa ma jeclay isla markiiba aniga oo aan u jawaabin ayaan xafiiskeedii uga baxay ayay tiri inantaas lagu magacaabo Hibo waxa ay hadalkeeda ku soo guraanaday Hindagaani sorry eedo in badan baan sugayay xilka qaadistaada lagu digtaa ruux haduu ku darnaan jiray ayay hadalkii ku soo afjartay inantaas ay kala kulantay xilli ay doonaysay shaqo oo ay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee qoyska oo xilligaas ay xilkeeda haysay wasiir Hindagaani ay ugu tagtay ama ay u doonatay shaqo ayay intaasi ku soo koobtay qoraal yar oo kooban ay ku baahisay barta baraha bulshada ee ku leedahay Facebook-geeda geesta kale wasiir Hindagaani oo ka jawaabtay hadalka inanta dhalinyarta ah oo deegaan ka soo jeeda gobolka Togdheer qoraalka ay ku baahisay baraha bulshada ee kula wadaagtay shacabka reer Soomaaliland ayaa ay Hindagaani ka jawaabtay waxyaabihii dhexmaray inantaas ma abuurto waxa tahay ilma aad u yar oo da'deedu ay hooseyso inan baad haddana tahay qol cidla ah kuma kirayn kareen waayo waxaad u baahan tahay cid kugu ilaalisa oo adiga naftaada weli maad gaadhin heer lagu sii daayo inaad xayalla adigu suuqa ugu noolaato hase yeeshee aan ku weydiiyay meeye family-gaagii aabbaha hooyada xagee bay jiraan inantaasi waxa ay iigu jawaabtay hooyadeed iyo aabaheed inay kala maqan yihiin waxaan rabaa inaad gurigaara ii kiraysaan isla markaana lacagta i siisaan aan si xorriyada u noolaado markaasaan weydiiyey hooyaan ahay inkastoon mas'uul qaran ahay hooyaan ahay inkastoon mas'uul qaran ahay dumar baan ah waxa weeyaan waxa la nin reer u weyn iyo naagnaagi ka umulis midna siduu wax u og yahay wax uma sheego waxaan dareemi karayaa wax kasta oo qofka ehelkiisa ka fogeyn karaya ayaan dareemi karayaa ya naagnaagi ka umulis midna siduu wax u og yahay wax uma sheego waxaan dareemi karayaa wax kasta oo qofka ehelkiisa ka fogeyn karaya inantii markii ay wax walba diiday waxaan weydiiyay hooyo balwad miyay jirtaa baan ku ceeb maaha qofku hobbigiisu wax uu ka heli karaa miyay jirtaa balwad aad leedahay iyada laftigeeda waanu kula maaraynaynaa oo caruurta noo joogtaaba balwaday wada lahaayeen waanuna ka maarayno ilaahayna waa nagu guuleeyay marka sidaa aawadeed waxaan weydiiyay kelmadda ma balwad baad leedahay way iga aamustay haana igumay oran mayna igumay oran waxaan ku igu dhiiro hooyadaayo kalena haday jirto iiga waran xaqiiqada si aan kuula daboolo